بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مقعيق وفرحان إسماعيل جبريل كستغن قول كتوكدير قارهان مقالة برعو ما أنتي تاريخ تهي لو كن كوبية لباتن بيش تطبات شنية تبنكيدي ومعلومة خميسة وحن سابق أني آمنة حسن محمد كوبية كدقين تهي مقالة برعو annagoo soo gaarsiinay qadar lacagtaas oo qadarkeedu yahay $100 oo ay noo soo wakiisheen ururka hablaha arganaafada ka tafbaleen Geralis oo fadhigoodu yahay magaalada Hargeysa halkaan aan ku soo booqanay walaalayaal waxaan soo gaarsiinay qadarkii lacagtan oo ku soo dhiibay waa gabadh arganaafa ka ah waa gabadh waalan maskaxda ka xanuunsanaysa aan miyirkeedii joogin waa gabadh baahi ay u raacday oo aan wax adduuna aan haysanin waxa dareemi kartaan walaalayaashayda muslimiinta ah in qof arag la marka hore qofka bilaadan kale subxaanahu wa ta'ala laba afar indhood buu siiya afarta indhood labana waa qalbiga labana waa kuwan dibadda ay sawirka qaado afarta waa ka maqan yihiin waxa dareemi kartaan qof arag la oo qalbi la maskax aan ku jirin xanuunsanaya qof faahi u raacday waxa xusid mudan dadka walaalaha muslimiinta ah ee soo xilqaamay ee ka markastaba ka warhaya walaasha dadka baahan dadka masaakiinta ah dadka guryaha lagu iloobay iska jiifa waxna aan haysanin waxay ahayd shalay markii nala soo sheegay warbixinteeda Aamina Xasan Maxamed inay tahay gabadh baarleysa oo baahan waxay ka jawaabeen isla hablaha ururka arganaafada ka tafbaleen Geralis isla maanta shalay waa soo booqanay isla maanta ka jawaabeen baahideedii iyo jawaabteeda ka jawaabeen oo inoogu soo dhiibeen qadar lacaga oo $100 إلهي سبحانه وتعالى وحنا قبرينا إلهي سبحانه وتعالى إنه مقام كذا وسريسيو إلهينا وبركايو يدي ولا لها سور ديب تهير سويدن المركز تبقى قرب تاجن إلهي سبحانه وتعالى بركايو كوا نصاد دري إنه سور ديبي يكوي كسو قادم با إلهي سبحانه وتعالى الله بركايو إلهي سبحانه وتعالى قلب ذا الله بركايو إلهي سبحانه وتعالى وحي أرق قبل إلهي سبحانه وتعالى أرق ذا الله بركايو ولا لها أرقنا فضك المركز تأو تاجن سيد يسوع قرب تاجن dumarkii iyo carruurta baahida badan hayse arganaafada ka ah ee guryaha lagu iloobay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan uga baryaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo ka abaal mariyo haddana waxaan u dhiibayaa ka warbixin doonta walaasheen Hiddo Xasan Maxamed oo iyadoo mas'uulka gacantana ku haysa ku soo dhawow raxiim halkan waxa ka hadlay Hiddo Xasan Maxamed afsiye waxay haysaa Aamina Xasan Maxamed waan idin salaamayaa intii wax soo tartay inta islaamka salaanta islaamka u diraya assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته ما أنت قيامة إلهي سبحانه وتعالى هرتيسا أن تغنو إنتي وحصو ترتي إنتي وحتري سوا إلهي ميسانك حسناتك هوقو ميسامو أنا قانا سبحانه وتعالى إلهي سمرك الجديد هايقال لغو وحن هي إن بدن إنتان السمرك اللان كو هي ما أنت كهر مان إنتان ميديتي وركيدا قدرين إلهي سبحانه وتعالى أستراد بان كو هيستي لكن مكان كفر سنواي وحن كو هيا قوري كراءة oo bilaaadmi leeyay oo dad caafimaad qabaan kula jira oo iyagu qaylada xamilaynin oo xanuunkeeda xamilaynin anigu xanuunkeeda waan xamilayaa waayo ilaahay baa igu itixaamay oo ibaday marka subxaanahu wa ta'ala waxaan ilaahay ka rajaynayaa ilaahay inuu samirka jidid iga dhigo waxaan doonayaa in hooy muslimiinta islaamka ee miirka qabta ee maalka ku dhaanta ee maskaxda ku dhaanta ee quraanka ku dhaanta سبحانه وتعالى إني يقصر لسان هو أنكو هيو كذبك إلهي باب بحياء سبحانه وتعالى قوت الضروري إلهي باب الغنتي قورت يسوق قري مركو قفك أو قري شنظنا يسقى سبحانه وتعالى أنتو جيني وعذابتنا أنتو جيني إلهي بأق لكن إلهي وحن كرتيني إفكي سبحانه وتعالى إن بضم بين بكان هي والله يقول يتحامي إن أنا إلهي آخر يقول يتحامين أنا جاي أنتي إسلام لما تود انت اصلا كبحيا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لمبر كان انغو سيته هويدي معان با ku qoran Faadimo Diiriye Maxamuud Cays baa ku qoran anigu lambar ma haysto imtixaankaas markii mariyay iyadu saada ii furtay anigu ma socdo waan dul fadhiyaa waan ilaaliyaa waan xafidaa laakiin waa 4673 laba idea one iyo ilaahayna subxaanahu wa ta'ala xafido walaalayaal waxaad dareemi kartaan qofka aan soo sheegay araganaafada ka ah masxuskiisa aanu joogin baahida adduunka ay isugu timi gabadh masaakiin oo waxba aan haysan dul taagan tahay waa sida runtii ah waa baahi aad iyo aad weyn waxa laakiin xusid mudan
hablaha ururka arganaafada ka ah Tof Baleen Girls oo fadhigooda magaalada Hargeysa uu yahay oo iyagu markastaba garab taagan dadkan oo kale Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha barakeeyo leenahay iyaga kuwa kale la shaqeeya ee walaalaha reer Sweden walaalayaal wax bixinta la wax bixiya waa waxa adduunka ugu qaalisan Allah subxaanahu wa ta'aala wuxuu yiri lan tanaalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun gaari maysaan wanaaga iyo jannada iyo khayrka gaari maysaan illaa aad bixisaan waxa aad jeceshihiin takala subxaanahu wa ta'aala wuxuu yiri wama anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khayru raziqin waxa aad bixisaan waxa idin siyaadiyaan mooyaan waxba idin kama dhimayaan dadka walaalahay ah Ilaahay subxaanahu wa ta'aala maqlaya waxaan insha Allah ta'ala ka codsanaynaa inay insha Allah ta'ala gabadhaas insha Allah ta'ala iskarab taago la ogaado oo la caawiyo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala idin barakeeyo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala meesha ka soo saarteen wax qaba Allah idin ku bedelo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala amalkiina Allah aqbalo cibaadina Allah dheereeyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh